waxaan u mahad celinaynaa runtii shacabka iyo dowladda Puntland oo si wanaagsan oo runtii isxilqaan leh oo gurmad leh ugu adeegay dhaawacyadii laga keenay magaalada Laascaanood runtii waxaan soo gaarnay magaalada Garowe si maaragtay aan u qiimeeyno xaaladda bini'aadanimo ee jirta isla markaana loo gaarsiiyo magaalada Laascaanood dhaawaca dawooyinkii lagu daweyn lahaa iyo sidoo kale dhakhaatiirtii intaba daweyn lahayd waxaa ammaan mudan runtii doorka dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda hay'adaheeda kala duwan oo howlgalay oo ugu horeyso Sodma hay'adda runtii maareynta musiibooyinka waxay ka howlgali doonaan inay dhammaan fidiyaan wixii gurmad ku saabsan ee la xiriira xaaladda bini'aadanimo tan caafimaad iyo dhammaan dhibaatadii halka ka dhacday wixii looga jawaabi lahaa dowladda Soomaaliya runtii waxay sidoo kale baaq u dirtay dhammaan hay'adaha caalamiga ah oo hadda ka howlgalayba sidii ay gargaar ugu fidin lahaayeen haddii noqon lahayd runtii fududeynta isku kala guuridda dadka deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan magaalada Laascaanood iyo sidoo kaleeto in gurmad caalami ah loo fudiyo xaaladaha bini'aadanimo ee ka sii daraya maalinta ka dambaysa ka isugu nimi in aanu amba bixino qayb ka mid ah dhaawacyadii ay dhaawacyadu ka soo gaareen dagaalada ka socda magaalada Laascaanood intani waa number kooban marka loo eego tirada dadka dhaawacyadu ka soo gaareen cunfiga halka ka jira aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan hay'adaha heer Puntland iyo heer federaalba ee ka qayb qaatay in ay suura gasho in dhaawacyadan aanu halkan maanta ka dirno iyo dhammaanba kuwa ka qayb qaadanaya in la daweeyo dhaawacyada ku haray ee yaala Puntland dhaawaca halka laga dhoofinayaa 90% dagaalkuma dhaawacmin waa dad madaafiic ee guryahooda ugu tagtay waa la socotaan isbitaalkii sida uu agaasimay Cabdirashiid sheegay wasiirkeennii hore isbitaalkii baa la burburiyay biyihii baa la burburiyay korontadii baa la burburiyay shidaaladii baa la burburiyay wax kasta oo ummadda hadee bedekeeda waxaad isleedahay waa dagaalkii Ukraine iyo Ruushku sidii maaragtay waayo waxyaabaha ummadda ka dhaxeeya ama nolosha ku tirsan tahay in la burburiya aad bay masiibo u tahay arintaas in laga waantoobo oo dhiiga inta Soomaalida halka ku daatay mid danba uusan daadan waa baaqeeda waa diraynaa waxaan ku soo aragnay dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dadkaas shacabka ah oo lagu gumaadayo sida xaq darada ah baan ku aragnay inay yaalaan goobahaas dadkan arkaynay marxalado kala nooc ay ku jireen dad jajaban iyo dad madaxa bada kaga dhaceen oo dhaawaca qaarkood intaan joognay way dhinteen maanta waxaan qaadaynaa 18 qof oo dhaawaca oo aan u qaadaynaa caasimadda dalka waxaan bartaan baaq uga dirayaa maamulka Somaliland waxaan leeyahay dadka aad leenasaan oo aad gumaadaysaan waa shacabku inaga magayo xabad fadlan ka daaya xabadda aad la dhacaysaan